kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walbo aad dunida ka joogtaan waa anigoo Zahaboy halka naga daawanaysaan waa maqal tube ku soo dhawaada muuqaalkana maanta haddaba inta muuqaalka u guda galin daawada haddii ay tahay markii kugu horeysay aad YouTube kan soo booqato subscribe share sidoo kalena videoga la gareey sifaad u heshid muuqaaladan barta mar walba aan soo gelino oo aad xiiso u leh mahadsanid Aabba Soomaaliyeed oo dhalay laba caruur ayaa halkaasi Puntland ku gowracay labadii caruur oo asaga dhalay. Subxaanallah, waa wax lagu xumaado haddana laga argagaxo. Aabbahani Soomaaliyeed ayaa wuxuu gowracay laba caruur oo hadda adduunka u soo baxayeen sidaasi halka labada caruur oo asaga u dhalay. Si kastaba ha ahaatee, aabbahani Soomaaliyeed ayaa labada caruur gowracay. Halkaasi la sheegayo aabbahani inuu darooga iyo maandoori isticmaalay, halkaasina ay ka tustay labadiisa caruur inuu maanta gowraco una ugu dambeyntii halkaasi ku gowracay. Balse dadkaasi halka ku noolaa ayaa falkani la yaabay, waxayna ku noqotay argagax. Halkaasi ay ku noqotay markii ugu horeysay aabba Soomaaliyeed oo meeshani dalkani Puntland joogo uu gowraco laba caruur asaga dhalay. Si kastaba ha ahaatee, maandooriyadan ayaa waxay keentay dhibaato aad u weyn aabbahan oo markii dambe caruurtiisa gowracay. Dadka halkani ku nool ayaa waxay si weyn oo argagaxeen sidoo kalena ay uga murugoodeen falka xun uu ku dhaqaaqay aabbahani Soomaaliyeed. Caruurtani ayaa waxay ahaayeen caruur yaryariis oo hadda adduunka soo korayo, sidoo kalena waxay ahaayeen mustaqbalka adduunka. Sidaan ognahay, caruurta hadda yariiska soo kacaya waa generationka hadda soo socda oo mustaqbalka dunida qaban doona. Aabbahani ugu dambeyntii ayaa waxaa la sheegayaa maandooriyo inuu isticmaalay kadibna ay ka tustay caruurtiisa inuu gowraco. Falkani ayaa si weyn oo argagaxay dalka halkani dadka ku nool magaalada Puntland oo si weyn oo argagaxeen sidoo kalena murugo weyn dhalisay. Sidee ku dhacday aabba Soomaaliyeed oo haddana ciyaalkiisa oo labada cunug u dhalay inuu gowraco? Dadkani ayaa si weyn oo argagaxeen, balse dadka hadaladooda waxaa ka mid ah isla daawano sida arrintani oo uga falceliyeen. Dhibaatada hadda maanta halkan ka dhacday waa dhibaato dhacda weeyaan aan sugaynay. Sababtoo tahay Puntland laga warqabo intay daandaan ku jidhay oo dawlado kale iyo dana kale lagu jiray oo aan khamrida laga celinaynin oo aan qaadka laga celinay oo aan daroogas laga celinaynin in ciyaalkayga maanta la birbireeyo. Dee waa Puntland lugooyada haysatay kowkad. waxaan ka codsanayaa waxgaradka iyo odayaasha iyo wixii dhiig leh Puntland wax gacanta ku haya ma jiraan in Puntland gacanta lagu qabto, daraagiska nagala cesho, dadka muqaadaraadka soo galay nagala qabto, ay ciidanku shaqeeyaan dalka ayaga iska leh. ninna aysan sugin, nin maqara mushaaxay aysan sugin, dalka ha u shaqeeyeen oo daraagiska ka qabteen oo ku ciyaalada la bireeyay dalkuna ku xigaan. maanta arin waxa weeye naxdin leh wallahi baan ugu timid waana maqaadir rabbi horta, laakiin waxyaalaha dhibka nagu hayo waxa weeye maandooriyaasha ilaahay naga qabto. hadda waxa weeye nin aan aqaano oo sida inay garanayo ayaa waxa weeye caruurtiisii waxa weeye labadiba gowracay. marka waa arin aad iyo aad u xanuun badan weeye, arin fiicanna maaha. marka dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in maandooriyahan ay dadka qabtaan. qof markuu maandooriyaha isticmaalo wuu ku tegayaa, kabacdina dhimir buu noqonayaa. kuwa hooyooyinkood dilay baa la sheegayay iyo kuwa aabbayaashood dilay, ma garatay? haddana caruurteeda maraysaa. marka waxay noqonaysaa inaan qof nina aan lagu aamininba caruur ama dumarba aan lagu aamininba. marka waxaan doonaynaa dawladda sharafta leh annagu waxba kama qaban karno arrintan. haddii aad nala socotay muuqaalka bilow iyo dhammaad waad ku mahadsan tahay. barnaamijyada iyo guud ahaan warbixinada iyo dhacdooyinka xasaasiga ah ee ka socda Soomaaliya iyo caalamka. mahadsanid. Dadka shacabka halkaasi ku nool ayaa waxay ka codsadeen laamaha ammaanka maandooriyaashan in laga qabto sidoo kalena halka la joojiyo maandooriyaha. balse waxaan ognahay dadka maandooriyaha isticmaalayo inay dhibaato weyn keenayso. si kastaba ha ahaatee, waxaan ognahay falkan xun dadka ay ku dhaqaaqayaan inay dad yihiin maandooriya isticmaalay. haddaba maandooriyaha waxaan ognahay dhibaato weyn inuu noloshaada kugu keenayo, sidoo kalena halkan aad ku arkaysiin aabihiisa inuu gowracay labadiisa caruur inay ka tustayba markaasi asagoo darooga isticmaalay inay ka tustayba maanta inuu gowraco labadiisa caruur oo asaga u dhalay. waxaasina waxaa keenaya maandooriyaha ayaa maantana halka xaaladaas maraya. balse
waxaa dadkani ayaa laamaha ammaanka si weyn uga cabsadeen waxyaalaha maandooriyaha la keenayo in laga qabto dadka dhibaato maadaama ay u keeneen sifa aad u heshid muuqaalada quruxda badan aan bartan mar walba soo gelino haddii ay tahay markii ugu horeysay aad channelka soo booqato daawadaha iloobin inaad subscribe saartid sifa aad u heshid muuqaalada xiisaha leh oo dunida mar walba ka dhacayo oo aan kugu soo gudbino bartan haddaba muuqaalka waxaa idin tabiyaanayay anigoo Zahaboy inta ku kulmi doona muuqaalka xiga waa anigoo Zahaboy idinka tagayo sidaas iyo nabadgelyo.